laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadana isla kaashanayo isa siiyo gacan isla kaashanayo isa siiyo gacan indhahaygu nuurkay u ildogsadeeno annahay isku kayladine urhooyahaygo dhabarkii adoogay kii laga abuuro naasiyo abaydimo kii ila wadaago sideen ku ilooba. السلام عليكم walaaladayda qaaliga see tihiin ma fiican tihiin walaalada qaaliga maanta maxaan idin wadaa awal cunto karis cilaan saar waxyaalahaas ay iga barateen laakiin maanta si waa ka duwan tahay inkastoo waxba yacni cunadii laftirkeeda ay tahay haddana xawaajiyadan ayaan idin wadaa xawaajiyadana xawaaji aad u fiican aadna u caraf badan aadna u tayo wanaagsan aan gacantayda ku habeeyey weeye maasha allah walaalaha qaaliga aadna uga baarmaysan xawaasho badan oo isku dardaro aad meel u raadin lahaydeen marka walaalada qaaliga xawaajigan laba nooc ayuu ka kooban yahay nooc waa nooca cuntada lagu darsanayay cuntada dhan lagu carfinayay noocna waa nooca yacni shaaha lagu karinayay isna waa dhirtii shaaha marka waxaan u bixiyay qadam maceeye oo kan yacni xawaajiga guud ah iyo shaah maceeye oo kan shaaha ah marka walaaladayda qaaliga waa kana hadii ku soo dhawaada ayaa idin leeyahay ubax buyuuta aan ku keen iyo xawaajiyo aad u tayo wanaagsan walaalaha qaaliga ah meel kasta aad joogtaanna waa ka soo dalban kartaan siiba goboladan Puntland walaalaha qaaliga iyo gobolada kale intaba insha Allah intii aan gaarsiin karo waan gaarsiinayaa ilaahay idankii walaalada qaaliga haddaan idin tusano waa kana xawaajigan yaryari waaweyn buu horta isugu jiraa kan weyn waa kana kan yarna waa kana adu waa rubac iyo tumin sida yacni ishago aad fahmaysaan waa kaasa yaryarkiisa waaweynkiisa marka asxaabta qaaliga waa kana qadam maceeye yarka kaaso waa kan qadam maceeye waa kana inkastoo xogaa leerka uu yeelay maxaa la dhahaa iftiin badan uu saarayo haddana waa kaasa qadam maceeye wuxuu ka kooban yahay ayaan rabaa in la wadaago markaa xogaa leerka badan ayaa idinka gaabinayaa walaalaha qaaliga marka waa kana asxaabi haddaad yacni markaa arki kartaan xawaaji dhuudhuubkii xawaaji buurbuurkii kabsartii qorfihii basbaaskii asxaabta qaaliga filfishii maxaan ku dhaadhaga yarihii raqaygii ama xamarta sa u taqaanaan jubihii isna waa ku jira wax ka maqan male ayu nooc caraf kama maqna idin leeyahay asxaabteeda qaaliga waa xawaaji burbuur xawaaji dhuudhuub qorfe hayl dhagayare filfil sanjabiil xitaa jubihii baa isna ku jira asxaabta wax ka maqan malahan abayarati caraf kan ayaa soo haray isagana maxaa la dhahaa oo shaah maceeye waa kana isagana asxaabta qaaliga waa kan isna shaah maceeye ayaa la yiraahdaa shaah maceeye waa kaasa isna wuxuu ka kooban yahay intaan idin muuqata walaalaha qaaliga haylkii qorfihii sanjabiishii muxuu ahaayeto kan laftirkiisa waa idinka hilmaamay sanjabiisha isaga laftirkiisa waa ay ku jirtaa kan sanjabiisha laftirkiisa waa aan ku daray walaaladayda sanjabiishii waa ay ku jirtaa waa kana asxaabi laakiinse xogaa yacni qofkii farsamada waday ayaa ka tagay laakiinse sanjabiishii waa ku soo daray oo marka aan soo hagaajinayay sanjabiishii waa ay ku jirtay laakiinse farsamadii baa looga reebay marka waxyaalo badan kale inaan kusoo kordhiyay waan jeclay marka kana idin wadayaa asxaabta qaaliga waa kana asxaabta waa kana marka walaala qaaliga kana muxuu ka kooban yahay haylkii qorfihii sanjabiishii
filfishi maxaa la yiraahdaa dhagayarihii maxaa la yiraahdaa walaalaha qaaliga ah yani wax kasta oo lagu carfin jiray shaah waan ku daray walaalaha qaaliga kama maqna aad ay u carf badan yihiin udgoon badan yihiin ma sha Allah walaalaha qaaliga ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay walaalaha qaaliga oo channelka daawan doona oo nagu cusub waxaan leeyahay subscribe saara gambalaalka furtaas waxyaalo badan aan soo kordhin doono insha Allah ula socotaan asxaabta qaaliga oo waxaan leeyahay yani shago jimle iyo tafaariikh ganacsato iyo kuwa maxaa dhahooyooyin guriga jooga meherado inta waa soo dalban kartaan ma sha Allah lambarada waa ku qoran yihiin waana idinku qoraya ilaahay idinkii halkaana waa ay ku qoran yihiin oo idinka diyaa arki kartaan waa kana lambarada qaybta hoose ay ku qoran yihiin marka walaalaha sharafta leh kusoo dhawaada ayaan leeyahay idin leeyahay ubax beauty aan ku keen gabdhaha oo meeshan jooga aan joogo laftirkooda cilaan saarkii kana beauty waxaan dhahaa kan ubax beauty aan ku keen waa taas ubax beauty salon waa taas marka insha Allah qof kasta isqurxin raba cunto karis raba caraf wax kasta waad ka faa'iidi kartaan meeshayda soo booqda walaalaha wadanka jooga magaalada ila jooga walaalaha kalena waxaan leeyahay soo dhawaada idinkana meel kasto aad joogtaan asxaabteeda qaaliga macmacaankii aan ka maqnay iyagana hadda kor waan soo galiyay video macmacaanka mid kalena waa soo diyaarinay insha Allah haddana halkan ayaan idinku yani gadaal ayaan idinkaga soo darayaa videoga maalintii hore dadka aan daawan aan ku xasuusinayo insha Allah dawaatan ubax beauty aan ku keen iyo qaybta businesska insha Allah asxaabteeda soo dhawaada dhamaantiin gacmo furan iyo qalbi saliima walaalaha qaaliga insha Allah walaalaha sharafta leh iyo sheer gareeya soo dad badan u gaaro ilaahay idinka Allah idin xafido meel kasta aad joogtaan inta unba walaal lagu yahay ishago ii sheer gareeya like-ta commentiga share-ta subscribe-ta asxaabta ha hilmaaminina waa walaashiin ubax iyo channelkeeda ama channelkeena ubax beauty aan ku keen marka ku soo dhawaada gacmo furan walaalahayga insha Allah inta ayaan uga baxaya isma dhaafno isma qaldanba oo xiiso leh ilaahay idankii waa kana asxaabta qaybta macmacaankana awal loo soo galiyay qaybta hoose ayaad ka arki kartaan videoga ka hooseeya insha Allah subscribe like comment share walaaladay nabad baan isku dhaafaynaaya caafimaad baan idinku dhaafay ismaqal dambe xiiso leh insha Allah